Soomaaliyeed macnaha in si macna meeshaan meel noo ka qaadanayo waxa ku wareysanaya TV-ga Murtimaal waqtigu kugu yar yahay waan ku ogahay xaaladaada hadda marka ma jeelbad ku sugan tahiin oo aad ku jirtaan intaas Soomaali tihiin jeelban anuu lixnin bil lixdeedaba tooshaan ku xukmanayo $6 milyan wali wax gargaar oo idin soo gaadho xagga dawladda Soomaaliya ka yimid jiraan xasan ka codsanaysan ummadda Soomaaliyeed $6 milyan waxaana gargaar ma jira safaaradda halka joogto sanaa wallahi waxay maxaa diiro waraabad baa lagu soo yeeday oo nala kumanayo wayna caayeen boo in anagu niyo arrimaha geli karo ma garad maalintooda waxa loo yimid oo Yemeniyo macna umma mutaxiya ayada oo shaqeeya waxayna neeraayeen waddankiina waa laga qaadayaa bas waxay loo xalbeen macna hadda nimankan xoojiyinta waddanka isbawlaalo waxay naga rabaan macna in ay waxay nagu wareejiyaan macna dilay maanta anagu waxaan loo waxaad ka soo jeedaan deegaanka Puntland ayaad ka soo jeedaan waxaana la isku haystaa magacaaga haya magacaagu waxaa ku soo yeediyay meesha nimankan ansaarada la yiraahdo waa istawaana rabaan wax la soo weligood waddanka loo tarxiilaya macnaha dhalinyarada iyo odayaasha dhammaan Soomaaliyeed joogto waxaan ku codsanaynaa macnaha meeshaan aan ku dhimanay dhulka hoostiisa jeelabaan ku jiraa macnaha waxay aqaan salaam lama jirto macnaha weeyalo xaaladoodu way xun tahay macnaha imishara waxay naga codsadeen wax mas'uul oo inagu wareejiyaan macnaha waddankeena waxa haddii mas'uul ka dhigta waddanka soo dalbado waa qaadanayo marka maanta waxaan ka codsanaynaa niyo meeshaan ay qabantaan dantaa lagu dhicnaa dhulka hoostaan ku jiraa dowladda way baabacday biyo male koronto male macnaha kala la sheegay male kalaas bariisaan rabaa qof jeel ku jira too kale duruuftaada Soomaalidu way garanaysaa laakiin waxaan ka codsanayaa in haddii aad haysato telefoon number lagaala soo xiriiro aad hadda si degdeg u yeedhiso wallahi telefoonada nimankan ansaarada leh waa loo golaaday imika dadka iska dhacayay intaasay maanta noo ma jirto macnaha fadlan lambarkaaga yeedhi si aan u duubno oo ay dadku u helaan lambarkaaga ku tabaalaysan jeelka Yemen ku yaala magaalada Sanca waa dad u baahan in gargaar bini'aadanimo iyo mid islaamnimo mid Soomaalinimo intaba la gaaro waana dad lagu eedeeyay inay ahaayeen ama ay kamid ahaayeen badbadeeda hase yeeshee ahaa dhalinyaro kalluumaysata oo ku jiray badda Puntland deegaanahana ka soo jeeda deegaanka Puntland waxa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba laga codsanaya maamul goboleedka Puntland iyo dawladda Soomaaliyaba in ay gargaar u fidiyaan maadaama oo ay dagaal ka socdaan dalkaasi Yemen oo aan ammaan ku fiicnayn in dadkaasi gargaar bini'aadanimo lala gaaro waxaanu idinka ballan qaadaynaa insha Allah sidii aanu ku heli lahayn lambaradooda telefoonka ee ay haystaan halkaasi oo aanu idinku soo gudbin doono insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.